السلام عليكم كلنتو وعنا وناكسن daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo tartan cusub halka aad nagala socotaan waa janaalka Tawfiiq Films waxaad ugu barateen tartanka cunto cuniska oo inta badan halkaan laga soo tabiyo halkaan waxaad ugu barateen inuu xaadir ku noqdo macaliyu oo mikrofoonka inta qabsado barnaamijka idin daadayo balse maanta asiga ayaa tartamayo oo tartanka labada qofood ku tartamaysa mid kamid ah ayuu yahay macaliyu ayaan u yeereynaa si uu ugu warbixiyo sidoo ugu diyaarsan yahay tartanka ugu horeen macaliyu ku soo dhawaaw ee tartanka bal ka waran sida aad ugu soo diyaar garowday waa salaamaya dhamaan asxaabta ku xiran janaalka Tawfiiq Films iyo guud ahaan adigoo ah barnaamijka daadiyaha maanta tartanka diyaar weyn ayaa waa u diyaarsanahay waxaan waa meesha inaan ka dhigay maanta wacdaro inaba aan caadi ahayn tartanka maanta degmadee ku matalaysaa tartanka oo aad garab taagan tahay aniga kulli waxa waa degmada Yaaqshiid waaye way jiraan dad badan inay degmooyin kala dooro laakiin waxaan ka doorbiday degmada aan ku dhashtay ee Yaaqshiid insha Allah waxaan rabaa Yaaqshiid inaan maanta meeshan guul ugu keeno waxa la tartamaysaa Lilof oo ka socda degmada Kaaraan fariinta u dirayso maxay tahay Lilof waxa leeyahay meesha iskaga tag nin oday ah ayaa yimid waliba libaax ayaa yimid haddii ay joogaan meeshan waxay ahayd haddii arki jirta dad oo aan tartamaynin maanta nin adiga ku hay brada waa isayna aniga adi meesha gili lahaydna waa inaad raadsataa just macaliyu maanta tartanka diyaar ah u tahay bal ka waran maanta waxa kamid tahay dadka tartamaya adiga tartankan inta badan dadka ka qayb galaayo waxa lagu abaalmariyaa lacag oo kooxdii qofkii guuleysata sida caadada ah tartankan waa tartan madadaalo ah oo inta badan dadka in lagu qosliyo loogu talagalay ma jirto baahi oo qofku u galaayo oo ah inuu ku guuleysto lacagta yar ee tartanka dhaxtaasho macaliyu ugu ran adiga tartanka maxay u galaysaa aniga tartanka waxa u galayaa inaan ku raaxaysto markii aan daawanayo iyo markii aniga aad duubayo waa qaraaxo waa baashaal iyo fani ah meesha looma imaado in dadkan baahi hayso سادراد الحمد لله أنا قد أقول الله باهي ما هيسو العقلاء ما هيسو وحارة ملايين تقف جنالك يكحرن داوضة إن أمر لبقى خصل السيو حلقة كنا صحيح شقوي كذا جارك مركا وأنا كفرح سنة إن عدتك جنب الداليو ولي بدتك عاطس إن أقرأ حكرة مقال قروح بدنا أسوق لي كرة شغلة كشغلة أو محل ده أو بروفيشنال كاجا إنه شيء أنا كشغلة كشغلة أكون والله ووليبا أكو قناعسناهاي أكو فرحسناهاي waxaan sameeyaa jalaato waan wareejiyaa shaqadaas aan ma sha Allah baahideeda boqolkiiba boqol ku tira tartankan waxa u soo galay inaan ku raaxaysto u qaraaxeeyo asxaabteeda qaaliga shaqadeedana jalaato la ayaa ahay taageerayaasheeda waxa ka codsanaa saxabka aad u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa macaliyu oo tartanka maanta ka qayb galay iminkan waxa uu yeereynaa tartamaha labaad oo lagu magacaabo Lilof sabaxan iyo sacba lagu soo dhaweeyo ku soo dhawaaw tartanka cunto cuniska ee janaalka Tawfiiq Films bal ka waran dareenkaaga ku aadan inaad maanta ka qayb gashay tartanka oo ku faraxsanahay kale laab Tawfiiq Films waa daawada waa asxaabta ku xiranahay waa barnaamij oo kale laab fani aan ku qoslo daawashadiisa ku faraxsanahay sidee kugu suurta gashay maanta inaad tartankan cunto cuniska ah aad ka qayb qaadatid waxay ugu suurta galay macaliyu lambarkiisa hay macaliyu ay ugu soo qabtay macaliyu marka balamiye Lilof degmada matalaysa oo tartanka maanta ku mataloosa degmada Kaaraan ku matalay maanta saasaan jecelahay macaliyu oo ka horeeyay booto ayuu hawada ku mariyay fariinta u diraysa maxay tahay asiga macaliyu alaabtay ina mar hore cuno maleeyahay badarka ma bayaalay أنا ميل سارة سجى بس. وحود هاي نكاس ماشوا كي ما هؤلاء بتوعها كاران. أصلا محل هذا. ماشوا كي ما هؤلاء بتوع سجى نسكار. دعس كان مغشي. وجهران محار جينيسا وأضربتها إن أدمشان كله يتد. وعذرا والله جياه. sida alla socono ee tartankan dadka qayb galaayo ugu qayb galaan baahi ay u qabaan shaqada aad ka shaqeeysid oo noloshaada aad ku meereys maxay tahay والله شقادة وحوق لما هاي ما أبيها من الشغل الجوجا مهرد سهيستا وحكي سعيد ما قبته هذا ما فهمته هاي مرة وحابي لابد أن تعيرتي أتكيد أود حسي معليو ينك لقوا مقعوا ليلوف أو وإذا مثلا عند دقموين كاران يدقمدا ياخشيد ترتن في عن يداوش وعن موجا وحا إنه بلابد أن خذي عرورته أو نجت هاجري ولكن كابتن حاشي waxaana ku xigi doonto ciyaartii adkeed ee macaliyu iyo Lilof sida u jeedaan waa qadadii carruurta
ka hor tartanka qadada waxaa taabgelinayo walaalkan kabtan xaashi oo si aad iyo aad ugu farxiyay caruurta tartanka taageerayaashooda qaybka ka ah waana codsigii taageerayaasha ku xiran janaalkeena Tawfiiq Films oo ahay inay inoo soo jeediyeen in taageerayaasha in caruurta tartanka ka qayb galayso ayagana qada loo sameeyaa iminka ayaa cunayna caruurtina xaadir waaye si sharaf leh oo asluub leh aynu ku wada cunno aniga ayaa bilaabay bisinka ku bilaabno bismillaahir rahmaanir rahiim tartiib u cunno sharaf badan bisinka ku bilaabno bismillaahir rahmaanir rahiim qadadii caruurta ayaa iminka noo soo gabagabowday caruurta ayaa dareenkooda weydii doona caruur ay ka warama maanta qadada sidee ahayd way fiicnay kabtan xaashi oo caruurta qadadooda kafaala qaaday kabtan xaashi maxaa leedihiin muraadkiisa maxaa leedihiin Allah u saalo kabtan xaashi muraadkiisa maxaa leedihiin Allah u saalo inkana kuwii weynaada oo wadankoodii dalkoodii dadkooda wax u qabta Allah ha idinka dhigo amiin billahi tawfiiq sida u jeedin iminka waxa bilaaban doonta ciyaartii adkeed u dhaxeysay Lilof iyo Macaliyu farintaad ugu dambayso Lilof waxa leeyahay brad meesha iskaaga tag libaax ayaa imaaday libaax hay adigana Lilof asataga tigis libaax meeshi farda la isku hay la isku faasho fagaara la isku keenaa iminka miiska ay raashinka ay ku xadhan tahay ciyaartina iminka ay bilaaban doontaa kulay waa arki doonaa faano la farka ma qodno
ugu horeen adigoo magacaada ku bilaabaya waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Nuur la yiraahdaa ku magac dheer Carfaayo Tawfiiq tartanka cunto cunista maanta aad taageeraysaa Liilo Frin la yiraahdaa taageeraya waxaan aaminsanahay inuu badihayo oo koobka aad u qaadayo wuxuu la ciyaarayaa Macaliyuun ninka la yiraahdo Macaliyuun ka waran in asigana maxana halis ma kala kulmi karaa taageeraha yarka taageeraysa ninkan door mar oo soo saftay markii nin aaminka ku qaban waaye nin adiga xil badan oo soo tiriyo way aad u maasan tahay Carfaayo oo ahay taageeraha
adigoo magacaada ku bilaabaya anigoo ah Masar Caan Cabi waxaan taageerayaa Macaliyu tartanka maxaa u rajeynaysaa inuu guuleysanayo waa libax Macaliyu wuxuu u baxayaa ninka la yiraahdo Lilof sidiisa waxa waaye nin qada soo doonto anaga waa ka guuleysanayna sideenaba Macaliyu macnaha maxaa ku taageertay waxaan ku taageeray waa nin maarta haliyay ah howlkar ah waa libax maanta oo kale Macaliyu in la dhaxmaa waa libax maanta libax weeye macalinka aad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahay Caan Cabi oo ahay taageere Macaliyu waxaa soo idlaatay ciyaartii adkeed ee u dhaxaysay Macaliyu iyo ninka lagu magacaabo Lilof kulanka wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan wuxuuna ku bilowday xamaasad aad iyo aad u sareyso sida uu tartanka ku socday waxaa loogu talagalay ama sharciga tartanka uu ahaa inay min 10 daqiiqo ay ku dhameeyaan raashinka sidaad arkaysiinne waqtigii oo la gaarin waqtigii ayaa ku dhamaaday iyadoo saxanka raashinka uu ku jiro markuu ugu horeysay Macaliyu oo dadaal weyn muujiyay sidoo kale Lilof asna wuxuu muujiyay dadaal aad u balaaran laakiin ma aysan u suurtagelin in ay midkood u guuleysto ciyaartu waa barbaro ayay ku idlaatay sida sharciga ah Karaan iyo Yaaqshid waxay ku kala tageen barbaro oo ay isku garab dhaceen sida aad u jeedaan hadii aan idin tuso saxanka oo raashinka lagu tartamayay saxanka Macaliyu ayaan ku hormareynaa waxa uu yeelaa sida tan maanta tartanka wuxuu ahay basta macaroni wallahi maanta meesha khada ka dhacday aan eegna saxanka kale ee Lilof uu ku tartamayay kan waa sidiisii oo wax badan ayaa meesha baaqi ku ah kolley labada tartamo waxay muujiyeen dadaal aad iyo aad u balaaran sababtoo ah waxay jeclaystaan inay idinka qosliyaan dhammaantiin oo meesha ku sugan iyo inta muuqaalka daawad doonto waxayna mudan yihiin in loo mahadnaqaa sacabkana waa inay ku caabisiin hal mar ugu horeen waxaad mikrofoonka siinayaa Macaliyu asigoo ka warbixinaya dareenkiisa ku aadanayd tartanka Macaliyu ku soo dhawaa almar adigoo sare u kacayo runtii labada tartamo waxa ay muujiyeen dadaal aad iyo aad u balaaran iminka Macaliyu ayaan dareenkiisa siinayaa Macaliyu bal ka waran tartanka maanta ma adkaay sababtoo ah waa maxaa la saxanka waa dhaqaaji weyseen naga warbixiba wala ana horta waa dadaalay waan guuleysay way sax waaye kulli raashinkii aad soo meesha soo ku jira ina guuleysay waan saaka waxa sababay عزومات وين أساك كإمادة هوتيل دوري وحاسة صعنة مرك دور ده إحرتي دقيقة ده يهرب دون هذه إن أقول سبعة أساك وحاكي أنتي عزومات داس أو متك من هوتيل هذا مقالة مقدسة أك عزونا مرك علوش هو راشن يوجري مرك صوبت على هاد لكن وحا هو هدي أنا بدر عون لهن أم راشن أنا عون لهن waxaa aaminsanahay in guuleysanahay aad u maasan tahay taageerayaasha Jose oo iminka xaadir ku ah madasha waxay dhaheen Macaliyu khada u soo baxmayna tartan muu soo bixin maxaa Macaliyu hadalkaas waa hadal dhalanteed ah oo aan waxba ka jirin khadama u imaanan aniga inaad tartama u imaaday sidaasayta waa tartamay nin walba guul dareesta waxa la dhaqa khada u imaaday aniga laakiin saxankayga waxa aragtay labo kuusa soo reebay labo kuusa lama dhigi karo khada soo doonta macalinka بليز وحاليا تاجراش جوسة إدتك داونا برامج كان دلعينت إدعاء دايسك ديان رأي جودنا سود بينيا وبدل هاي ما إن إساك عزومات هير عالمي هاكي إمادة
ma kuu qorshaysan tahay inaad mar kale ka soo qayb gashid tartamada kaleente إن شاء الله وارجينا كل ما صوص إنا صوص ضد أوجاي وحاروا إنا كتر صدار وماشى إنا ماشى إما دانا روا وما سنتين هذا ما سيهاي مع اليو أو درينكيس سو كوين هاي إمك وحاسين إن أنك لو ما عاولي لوف إن كورن إن سحنك يوم أنت قبيعة يا محلها أو سحنك يوم قبيعة ودقاجوي سي ماشي وقتكتي إن محا أصابه غير أنا مال أنت تجوا حنصو أنا مركا حفظ اللي يعيشوا مركا تاسع يوصلتوا مركا غير وكل الله بدهم دربيرك يقطعوا تاسع يصوب مركنا قد ودوايب إما أنا داد ولا باللهن ويوسعوا الهدبو يعني يوا كترسلا أدوين اسم مكرافك بين عشرتك ميجا ترسلين أنا كاترسلي عزومات لما كيمانن أنا عزومات كيمان برادا بنت جوجة بنتا وبنتي زرعت كتير زرع ببارة عقير قدودي يقول سوق قسمته وضد أنت كسر سعودي تنو بيرك يقصي قسته ساس أقول سوق تمانة معليو وضدك كتير ما العدي عادي يعني كان خلاص صوت والله بلا أنا لو ساعة صورة ولا ساعة فيري ساعة حقني غيري حقني ليلة بس مركا وحالة هاي محالة هاي مرسينا ميل مويسو كل ما عليو إلى الله إنما مرسينا أنا لو ما مركا هذيك مرجينا سأنا مركا لا أترتن كوسق بقش إن شاء الله السادوين أنا ديار سن مركز وكل الله هاي إسكو مهد عليا إن لبدين ما دام أنا كل جولة سنين أنا قادر برادك أقول Thank you.